meydad tirabeel ah ayaa daadsan deegaano hoostaga gobolka bari ee dowlad goboleedka Puntland halkaas oo ay ku dagaalameen ciidan ka tirsan kuwa difaaca maamulka Puntland iyo sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan kooxda Daesh. wararka ka imaanaya buraleyda calmiskaad ee gobolka bari ayaa ku soo waramaya in halkaas dagaalo iyo duqeymo toos ah ay ka dhaceen isla markaana ay dhaxmareen ciidan ka tirsan kuwa difaaca maamulka Puntland oo howlgal ku jira iyo sidoo kale kooxda Daesh oo iyagana kamid ah kooxaha xilligan laga saarayo deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka bari si gaar ah buraleyda calmiskaad oo ah meelaha ay ku xoogan yihiin. subaxnimadii hore ee saaka ayaa la sheegay in koox hubaysan oo ka tirsan Daesh weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen fariisan ciidanka difaaca Puntland ay ku leeyihiin deegaano hoostaga buraleyda calmiskaad ee gobolka bari waxaana xigtay rasaas xoogan oo ay hubiyeen ciidamadii ku sugnaa saldhigga laakiin saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca Puntland oo sheegay inay feejignaayeen sidoo kalena hayeen xogta weerarkaasi kooxdaasi ay soo qaaday ayaa muujiyay difaac xoogan taasi ayaana keentay in qasaare xoogan uu ka dhasho dagaalka ugu yaraana 30 ruux ayaana la sheegay in halkaasi lagu dilay oo dhinacyadii dagaalamaya halka saraakiisha ciidamada maamulka Puntland ay sheegeen in ka badan 20 qof oo dagaalamayaal ka tirsan Daesh ay ku dileen weerarkan. subaxnimadii hore ee saaka ay la damacsanayeen inay kula wareegaan saldhiggii ciidamada difaaca ee buraleyda calmiskaad deegaano kamid ah ugu dambeynna waxaa la sheegay in tiro dhaawacyo ah ay ka dhasheen dagaalkaasi xoogan oo ka dhacay buraleydaasi calmiskaad. saraakiisha ayaa sidoo kale warinaya in meel kasta laga arkayo meydadka kooxdii weerarka soo qaaday ee ka tirsan kooxdaasi Daesh waxaana la sheegay in xilligan ay isu keenayaan hal goob sidoo kalena tirada rasmiga ah ka soo warbixin doonaan waa sida uu sheegay mid kamid ah saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ee ku sugan buraleydaasi. Puntland ayaan ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin dagaalkaasi subaxnimadii hore ee saaka ka dhacay buraleyda calmiskaad ee gobolka bari iyadoo xogaha qaar ee la helayo ay sheegayaan in dagaalka uu xilligan sii socdo sidoo kalena ku sii siqayo fariisimada waaweyn ee kooxdu ay ku leedahay deegaanada buraleyda calmiskaad ee gobolkaasi bari. horey kooxda ayaa qaraxyo uga fulisay buraleydaas waxaana ku geeriyooday askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada difaaca maamulka Puntland wixii qaraxyadaasi ka dambeeyayna waxaa la sheegay in Puntland ay sii xoojisay howlgalka buraleyda calmiskaad ee gobolka bari xilligan uu ku sii siqaya meelo kamid ah buraleydaas oo xilligan laga saarayo kooxdaasi Daesh.